ninkan beenta naga sheegaya baa u jawaabayaa sidaad iga codsateen wuxuu yidhi haddaad rabtaan naag inaad gursataan oo adoo keliya jiriya 17 sano dayaarad waxa u qaadataa Soomaaliya anigana saasaan ugu jawaabay masaariye maxaad naga rabtaan 30 sanaana daba socoteen oo been sheegayseen oo filmadiina nagu caynayseen oo malaayiin baad ku bixiseen sumcadda Soomaaliya ka dishaan horta information kanaad sheegtay waa khalad min zaman bayna social media ku jirtay min 2 sano ilaa sanad iyo barku dhawaad marka information khaldan oo dhacay kamaan expire ta meesha soo dhigtay saaxiib information ka laftirkeeda aad Soomaali ka sabaysateen inuu wiilku asagoo 17 jir ah inuu gabar guursan karo dhowna intuu 20 gaarin midda labaad dhowna midda saddexaad ayaga dooranaya afaraadna intuu 40 gaarin muusa ku guursaday afar naag ayagoo raaliyaal yani aamusan ba isla joogaan adigu ma sha Allah waxaad ku darsatay hadal cusub xawaajiya oo ah hadaad u dhooftid diyaarad u qaadatid ay gabdhahooda way iska baxshaan way ku siinayaan gabadha Soomaalida ana maharkeeda waa cheap raqiis weeye yani oo kalifaad badan kugu ma qaadanayso ama qaali ma aha ninka Soomaaliga sida waysa waa sida nimanka caalamka islaamka oo kale waxbana kama duwana from Indonesia ila Brazil diintu wuxuu banaysay afar inuu guursado haduu awood leeyahay waxaan laakiin shart ma aha noo yaala hanaka qaanuunna ma aha inuu ninku afar guursado khasab Soomaaliya qofkaad leedihiinna 17 jir buu ku guursadaa Soomaali walba qofku mustaqbal maraba miyaa 17 waa qof yar oo wali wax baranaya dhaqanka saaxiib awalna ma jirin haddana ma jiro yaana kugu sheekeeyo diyaarad ninka noo soo qataa gabdhaheena la kaxaysan kara yaa beenta kugu jeestay oo ka dhaadhiciyay meherkana Soomaa intaan garanaya waxa weeye meherka Soomaali uu ka qaalisanaya meherka Masar wadankiina meherkana 100% ninka baxsha ama faamiligiisa culture marka anigana malcaqadan gadaya adigu firgeetada gad oo masaaridu taqaano kuma naqaan saaxiib meher haaf lagu baxsho Soomaalidu ma taqaan information kana gabadha Soomaalida maharkeeda ma badno waa cheap ama qaali ma ahana saaxiib gabadha Soomaaliga meher badan baa laga baxshaa warna ma haysid gabadha 100 geel baa laga baxshaa ma ogtay horta halka geel intuu ku fadhiyo dahabna waa laga rabaa xafladaha protocolo dheer oo hameena soconaya sida boqortooyada iyo salaatiinta Soomaalida isku guursadaan hatta waxaan rabaa inaan ku sheego carabiga hatta soo qortay Isbaaninku waa khalad saaxiib orod horta carabiga iska soo sax inta dadka wax ka sheegin beena nusmaliyan dhan baa ku daawada checking-na ma samaysid markaan arkay dhaqanka arooska gabadha Soomaalida min zaman kumayaal sano ilaa maanta sawirkan saaxiib maxaad ku soo xasuusanaysaa waa dharka laftirkiisa ku labisan jireen boqortooyada faraacinada oo Masar oo darbiyada madxafyada oo dhan Masar ku sawiran waa dharkeennii maanta saaxiib nidaha dhaqanka u leenahay dharkaas waxaa gashataan marka soo dhaweysanaysaan dalxiisyada madxafyadiina ama qubuuraha faraacinada bas yani dhaqan rasmi ah ma aha wadankiina hadda xaqiiqada laga hadlayo run ahaan sawiradan hadda ku tusayna saaxiib waxa weeye protokolka ciyaarka Soomaalida arooska Soomaaliya waa laftirkeeda ayada faraacinta siday xafladaha aroos ku dhigan jireen oo u ciyaari jireen xeertiina waa taas halkaas ay taala korkiisa waa laftirkeeda sawirada darbiga ku sawiran waxna laga bedelin ومانت متحفيدين ودن مصر bay ku sawirantahay dhaqamadaas macal kalarkii Soomaalida saxda ahaa ee buniga kan meeshan ku soo dhigay waxa weey DNA-da Soomaalida waa iyada laftirkeeda DNA-da boqortooyadii hore oo Masar xukuntay faraacinta la yiraahdo markii yimaadeen oo la baaray gaalada Soomaalida hal wax bay noqdeen yani dadka aad ku faantaan way ayeeyashii iyo awoowayaashii waa dadkaygii informationadaasna Masar min zaman bay qarin jirtay 10 sano مصريين قديم كانوا فرعين وحي كسو هجرين دول أورنجري بوند دول كاسنا مانتا جغرافيهان صوماليا ويا وانا حضارة جري جرتي صومالي ده هوري نهر النيل بي دبق قلين ميشو كل ماضي بين أركان مركو كاسنا مصر بين نقطة الكاسيس كدقين حضارة كردستان هادو دولالك بوندقي هوري وحي بحنشرين دولالك أوياشين أما دولك إلهية ده حتى السنميو ده قديم كهيد كل قد قبلت ده حيو ديقي جرين دول كان صوماليا أما بوند حضارة دول أورنجري inta ilbaxda ana qarbiga ama carabta information kaas oo dhan way ogyihiin hatta mu'arrikhiinta Soomaalida noo jooga maanta way ogyihiin information kaas maanta madxafyada Masar af Soomaali bay ku qoran tahay Soomaali badan markay xagga tagto caadi bay u akhrin karaan oo kicin karaan afka ku qoran luqadda la yiraahdo hieroglyphiya waa laftirkeeda Soomaaliga oo la yiraahdo faraacinada ku hadli jiray waana luqadihii ka baxsaday inay dhintaan af Soomaaliga maanta jirto lahjada kamid ah luqadaas hieroglyphiya ah oo ah Soomaalida faraacintii hore ku hadli jireen كلمة حتى فرعون نفرتيتي كل كلمة الصومالية هذا waxaan ku sheegayaa kelmado hieroglyphi ah arsheeg afku garowaxana sheegaya wanaag hor ahaa horseed qof Soomaaliya bas baa garan kara sawirkan waxa way kii halaagmo lacnada ku dhacday Ilaahay cadaabay Fircoon Ramsiis الثاني markay reer galbeedka yimaadeen qabrigiisa soo fageen
sawirkan baana lagu soo dhaweeyey qarbigu soo dhaweeyey waa kana adinkuna maasha allah maad ka helin arrintaas ma rabtaan nin kalarkaas leh inuu masar xukumi jiray oo boqorka ahaa sawirkii waa clorox ku dhaqdeen waa caddayseen saasaad ka dhigteen xataa ninkan meesha soo dhigateen ineema eka yurub weeye xataa shakalkiisa ilbaxda masrida taariikhyaasha dad wax garanaya su'aal baa inii hayaa dadka u sheegtaan sababta ra'iisiga ah oo nebi muuse ugu koray gurigii fircoon xikmadda ilaahiga meesha ka socotay maxay ahayd faraacinadana waay markay u imaan jireen dhulka bunti la yidhaahdo inay tarjumaani waxbana wadan laakiin markay tagaan xadaaradaha kale sida jiniiska hindida fayniqiga yoonaaniga roomaaniga ah tarjumaan bay qaadan jireen su'aashaas ma iga jawaabi kartaan la'annu sababta waxa weeye dadkaas waxay ku hadli jireen luqad soomaaliya oo ah maanta la yidhaahdo hieroglyphiya xataa dariiqadii qadiimka ahayd oo faraacinada ilmahooda wax ugu dhigi jireen waxaa la oran jiray sawirkaana waxaa weeye ilmo faraaciina oo qadiima markay wax baran jireen sida loo soo qoray waxaa la carabeeyey kelmadda waxay la yidhi subaac weeye kelmadda saxda ana waxa weye soomaaliga waa subac weeye oo la bedelay dariiqada qadiimka maanta soomaalida waxay u qaataan waxbarashada qur-aanka min ilmaha iyagoo yar bay ku bilaabaan subaca dariiqad qadiima cimrigeedana waxaa lagu qiyaasay 7,000 sano inay jirto haddana fideogan ila daawada oo ah dad oo khaliija oo dariiqada soomaalida bartay oo qur-aanka ku xafiday maasha allah ninkan waa nin indhala qur-aanka saasuu ku xafiday dariiqada subaca na oranina masaariyay nabi allah muusa wuxuu ku hadli jiray loo soo diray carabi ama cibri afka yahuudda laana nabi muuse kow ilaahay wuxuu soo diray faraacinada afka soomaaligana si fiican buu muuse calayhi salaam u yaqaanay oo sidii buu fircoon intuu aaday buu af soomaali ugu yeeray diinta islaamka soo gar ilaahay ka baq siduu si fiican ugu fahmo maanta soomaaliya dhibaatooyinka dhan ku dhacay laakiin DNA-eedu ma isqariyo ama firka ama jiinaadkan adinkuna masaarada u bixisaan inay tahay muqadas waxay gaareen adduunka inay xukumaan maanta maaha kaliya caalamka qadiimka maanta caalamka jadiidkana xataa way xukumaan waa dad siyaasadda xukunka u dhinta soomaalida waxay joogaan maanta barnaamijka Sweden Norway Britishka Australia ururka Yurub United Nations Congresska Mareykanka qaadiga ugu weyn xataa oo maxkamadda duwaliga waa nin Soomaaliya waad u jeedaan wasiirkeena xataa maanta oo Canada jooga Axmed Xuseen wasiirka qaxootiga ama wasiirka hijrada migrationka warkaan ila arka salaamaya madaxweynaha Canada Justin Trudeau dariiqada faraacinada oo qadiimka saana waxa isku salaama Soomaalida caadiga ah bishii hore doorashooyin waaweyn baa waxa ka dhacay Britishka dawladda hoose ee degmadaha waxaana ku guuleystay 26 siyaasi Soomaaliya gabdho iyo nimaanta waxaan nahay jaaliyadaha haajirto ugu baawar weyn qarbiga noqonay lobby Soomaaliya waxaan oran lahaa iska ilaaliya nacalada faraacinada aad sheegataan inayna ku dhicin awlaaddoodana iyo sheekooyinkoodana ka dabahara